السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصوا هذا برنامجكيني محي كل طهي مصبا قوان قاتي إنه توابد كانوا ودب دنبدت كأنو قنين أما آنو دبن وحو تجينين شيخة أما حكيمة وحكو إلي مدوني ضدك إن دب دنبا ودبا أما إن قنينو إن صيحة السي وحكو إلي وحدو قورتا ميل فوق أنا عدنا آني دقانين وددك بإسكا قري taladii buu qaatay wuu guuray wuxuu degay meel fog aan cidina deganayn laakiin caruur baa bartay oo markii arkaanba dhagax bay ku tuuraan isaguna wuu aamusaayo iskama difaaco markuu sheekadii ay badatay oo maalin kasta dhagax lagu tuuro oo khaatiyaan u istaagay ayaa wuxuu u tegay ninkii xakiimka wuxuu ku yidhi aamuskaygii iyo xishoodkaygii ayaa dadka igu dhiirigeliyey ee baxan sameeya dhagax ayaan ka daalay maalin kasta lagu tuuraayo wuxuu ku idhi xakiimku maalin kasta mar yeelo mar aad istaagtid oo madaxaaga kor aad u qaadid oo sun afkaagaad ka sii daysid sidoo qofka jaahilka markuu suntaa u arko uu ku garto waxa tahay iyo qiimahaaga soo garto iyo sidoo markuu arko qofka axmaqa uu dib u kaaga noqdo uu ka baqo uu ka xishoodo taladii buu qaatay maskii markaasa ayaa caruurta markay arkeen suntu afkiisa ka sii daynayo ay faraa ka qaadeen oo iska daayeen masaaridu waxay ku mahmaadaa waxa jira dad ka mida dadka ama qayb ka mida ama nooc ka mida dadka oo baqa oo aan xishoonin yacni waxa jira dad diintu aan xukumayn oo diintoodu aan qabanayn dhaqanna aan xukumayn xishoodna aan garanayn waxa qoray garanayaan waxa weyn usha markay ul arkaan dib bay u noqonayaan oo ay ka baqayaan inaad dadka saamaxdid waa wax wacan laakiin waqti kasta ma wacna dadka qaarkood markaad saamaxdid way kugu dhiirigelinaysaa taasu oo xumaantooda ayaa sii badanaysa axmed shawqi wuxuu ku mahmaaha axmed shawqi gabay buu tiriyey waa nin abwaana wuxuu idhi والشر أن تلقوا بالخير ذقت به ذرعا وإن تلقوا بالشر ينحسم وحيري حمانتا هداد كو قابشد خير adiga khaatiyaan istaagi xumaantana haddaad ku qaabashid xumaan dib baa lagaaga noqoni oo lagaa baqi haddaad cid walba aad saamaxdid adigunbaa daalaya oo waad tabcaysaa noloshan marmar qaarkoodna marka dadka xumaantooda aad ku qaabashid xumaan aad bajisid dib baa lagaaga istaagi oo lagaa baqi إلهي قرآنك سبحانه وتعالى وحيري بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم يعني حمانتا أي إلهي سبحانه وتعالى ولكو قابل وناك ما كد وناك قابشت قفك حمان قف عن بيسو بدري تاسو واصح لكن مرمر قاركود واحد أبا هنتهي قفك إند حمانك قابشت سببتي الدليل كنوا حويان نبي عليه الصلاة والسلام مركو مكقلي ضد فربضن بو عفي أو اسك سامحي لكن هدنا واحد شري ضد كمي ضد كاس أو دور قفا ودي دا إنو سامحو ووحو يردلا أيو صحابة دي كوري هون حريصانينا حتى دركت يكو داها كعبدا قعنتكو هايستا هون حريصانينا أو دلا نبي عليه الصلاة والسلام مرمر فربضن بو عيدم وديارين شري وويرري شري قبائل كله أما ضد كلو قالاء سببتنا وحويا سي أبقان أي مسلمين تقيموه دا وقرتاني أودو دا نبي عليه الصلاة والسلام صحابته وحو كربي إن مدحو دا كر وقادان وآني بقين وحقو دا نقاتان إن مرلقو خياميو ويدع كرتا لكن لبتشر إن تقودكي كل عدد وأد لبتشر لقو خياميو تاسو عيب عرب كاغن وعن إن حريسكو هادلايا إددك نيد أوديسايا إددك هادل وعن ودبعسن tusaya ama maqashiinaya marmar qaarkood inuu barto carabkan laftiisu inuu hadal naxdina uu ku iraaho oo dadka dhiba inuu damqo oo xaqiisa inuu qaato oo hadal xanuun kul dadka inuu ku iraaho waa inay dadku bartaan aamuskaagan iyo xishoodkaagan inuu yahay aamuska qof awood leh oo wax iska celin kara oo samir leh maaha awoodda maaha aamuska qof baqaaya oo bila awooda waxa xasuusataan markasta xumaanta haddaad markasta aad ku qaabashid wanaag iyo naxariis iyo hadal wacan khaatiyaan baad istaagi xumaantana haddaad ku qaabashid xumaan dadku way kaa baqayaan dibna way kaaga noqonayaan qiimahaagana way garanayaan maxay idinkan idinla tahay hadalkaygaasu ma saxba mise waa khalad waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu